kusoo dhawaada qaybta koowaad ee barnaamij gaar ah oo aynu uga hadlayno hodantinimada afka Soomaaliga. waxaa markaan marti iigu ah Axmed Yuusuf oo ah xeeldheere afka iyo dhaqanka Soomaalida. Axmed wuxuu qoray ama la qoraal wadaagay buugga la yiraahdo Laacsiimo Naxwaha iyo Dhigmada Afka Soomaaliga. Axmed kusoo dhawow fogaal aragga caalamiga ee dalka ama dalka TV. xasayis waad mahadsantahay waan dhowahay. afafka kale marka la baranayo ama la isticmaalayo marka la sameynayo weedha waxaa la raacaa xeer baa la raacaa. afka Soomaaligu ma leeyahay sharciyadaas? runtii wuu leeyahay laakiin waxaa jirta inagu ma adeegsano. waxaanu had iyo jeer ku koobnaa inaynu wax yar ka soo qaadqaadano hase aynaan wada guda gelin ama si ballaaran u sharxin, laakiin way jiraan. afafka sida ay u kala dhawaq badan yihiin ayay u kala hodansan yihiin. afkeenu xaggee kaga jiraa? runtii horta wax badan afkeena kama aynaan faalon ama yacni faallo badan lagama samayn. way jiraan meelaha qaar wax laga qabtay oo matalan suugaantoo kale iyo aada loo dhexgalay, laakiin marka afka iyo dhismihiisa laga hadlayo way yartay inta badan ee aynu wax ka qabanay. laakiin markaad u eegto afafka kale afkeena run ahaantii afafku siyaabo badan bay u kala hodansan yihiin ama u kala horumarsan yihiin. waxaa ka mid ah dhawaaqyada afka ku jira ee afka laga helo oo kale. waxaa ka mid ah ereyada ay isticmaalaan. had iyo jeer marka afkeenu imika haddaynu kasoo qaadno afafka u badan adduunka oo yacni dhawaaqyada ugu badan leh ilaa waxay adeegsadaan marka laysu wada geeyo 60-50 shaqal iyo shibanaba ah. imika Soomaaliga oo kale inagu waxaanu isticmaalnaa 5 gaagaaban iyo 5 dhaadheer iyo dhowr kuwa diftoonka ama shaqal huwanka la yidhaahdo iyo shibanayaasha inaan badnayn ilaa 22. laakiin markaad eegto sida ay u jiraan waxaa matalan baadhitaano aanu samayna ama sida ay afkaba ugu jiraan matalan shaqaladeena gaagaaban oo kale waa 9, kuwa dhaadheer 20 bay imanayaan, kuwan shaqal huwanka ama diftoonka la yidhaahdo ee ay iyo aw iyo kuwaasi iyagu ilaa 30 bay yimaada. afka ugu badan ee leh baynu nahay. shibanayaasha ilaa 30 bay gaadhaan dhawaaqyada shibana ee afkeena ku dhex jiri kara, laakiin intaaynu inagu isticmaalno aada bay u yarta. marka 9 dhawaaq haddaanay ka badnayn ayaynu leenahay oo afka u badan buu noqonayaa af dhawaaqsan. waxaa jira su-aalo weli aan baadi goobayo jawaabahoodii. waxaa ka mid ah tusaale oo kale dhawaaqyada markaynu ka hadlayno erayada dad iyo dad isku sibaa loo dhigaa. miyaynu dee marka iyada halkaasi aysan cilad ka jirin oo dee qofka baranayo kala afka aysan dhib ku ahayn? runtii afkeena wuxuu qornaa 46 sano 47 sano ku dhawaad. intaaba yani meelo kale waa laga hormariyay, laakiin marka naxwo ahaan noqoto wax horumara baynaan samayn. sababta waa maxay? waxa weeye inta badan inagu aqoontu inagu yartay, aqoonta linguistics ama afmaalka ama yani afka ku xeel dheer iyo inaga oo dadka kale xitaa ajaanibka ah ee dee afka barta ee yani afafkan yaqaana ee linguisticska yaqaana aanay u suuro gelin inay waxaan oo dhan iyagu ay la soo bixi karaan ama dee ay wada ogaan karaan. inaguna aynu ku mashquulay matalan imika qaybtan literatureka ama dee suugaanta aynu idhaahno oo inta badan dadkeenuna aqoonta u badan uu ku leeyahay. marka waxaad imika matalan arkaysa haddii aynu dhawaaqyadan kala saarno oo shaqaladan aynu iswada saarayna ee dee aynaan sida u jiraan u isticmaalayna waxay keenaysaa inaynu horumar
gaari weyna marnaba oo qoraalka iminka matala qoraalka qof walba siduu doono u qortaa qof walba siduu doono u dhahaa laakiin afafka kaleba way leeyihiin siyaabo ay dadku u wada yidhaahdaan laakiin qoraalka waa wax dee standard oo taagan oo ka wada dhexeeya marka afkeena markaynu dhawaaqyadiisa oo dhan soo wada saarno ee aynu inagu dib habeyn haddaynu xitaa ku samayno oo kale waxay noqonaysaa waxaynu heli karnaa qoraal standard ama qoraal taagan oo guud oo loo isticmaali karo hadallada qofku siduu doono ha u dhawaaqo laakiin intaynu dee wixii aynaan wada gudagelina aynu taaganay dhawaaqyadan aynu samaysano oo quraynu isticmaallo aynu ku taagnaano dhibaata keenaysaa yani horumar ma laga gaadhayo marka kulley waxaa loo baahan yahay in dhawaaqyada dib u habeyn wax lagaga noqdo dhawaaqyada keliya maaha waxyaalaha kale waan arkay waxaa kale oo dee lamid ah falgaraadeynta ama waxa afka qalaad lagu yiraahdo conjugationka tusaale oo kale erayada durug iyo murug marka la ficil geliyo waxa weeye way kala duwanaanayaan isku si ma noqonayaan hadda kaba soo qaado kale murugay iyo durkay macnaheedu gaadi ka bay isku bedelaysaa arrintaana miyaana la oran karin halka laftirkeedu waxyaalo yani xoogaa isfahan yani cilad baa ka jirta horta waa dhibaatooyinka badan ee afka haystay ka mid tahay laanno afkeenu sida uu u jiro waxa weeyaan matalan 9 shaqal oo gaagaaban buu leeyahay 9 shaqal 4 way culus yihiin 5 way fudud yihiin marka 9 shaqal uu leeyahay haddaynu u kala saarno aynu kala qorno oo midba siduu yahay aynu u qorno waxaynu gaaraynaa inaynu helno xalkii iminka murug iyo durug markaad eegayso waxaad arkaysaa inay kala duwan yihiin oo murug waa u ayaa ga-da ka horeysa laakiin durug u waa ka horeysa marka u iyo un baynu u wada isticmaalna marka shaqaladaa fududi haddii ay ga-da ka horeeyaan wuxuu ahaa ereygaas dhawaqaasi kacbuu ahaa laakiin ga-buu u dhawaaqa markuu shaqalka uu ka horeeyo fududi marka haddaad ka dhex saarto labadaa shaqal iminka matalan oo durug aad shaqalka fudud ka saarto kacbay kusoo noqotaa oo durkay bay noqotaa laakiin murug markaad uda ka saarto waxa weeyaan shaqal adag markaa ga-dii ma wareegaysa ee sideediiba u taagnaanaysa marka markaynu kala saarno labadan shaqal ee kala duwan ee kala culus waxaad hadhow garanaysaa inay laba dhawaaqoo kala jaada ahaayeen marka hore waxaad arki kartaa matalan arag oo kale uu arkay ayaynu idhaa dhereg oo kale ugu dhergay marka ag iyo cag marka haddaynu kala saarno oo aynu u baahnay inaynu kala saarnaa waxaynu helaynaa qoraal saxa oo hadhow aan qaldamayno qofka markuu ada fudud uu ka daba qoro wuxuu og yahay inay u dhawaaqayso waxaa kaloo jiri karta iminka matalan da-da iyo ta'da iyaga laftoodu way isku noqnoqdaan oo shaqaladaa fudud iyo kuwa culusba ayaa keena inay isku bedelmaan marka iminka haddaad tidhaahdo hurud iyo gunod waa laba ereyo da ku wada dhammaada oo wuu guntay iyo wuu hurday marka barbardhig la sameeyo afafka kale falka isirkiisa ereyga falka isirkiisu tusaale oo kale carabiga oo kale waa wax tagay sida qaraja akala ingiriisku waxa weeye waa fal amar weeye oo tusaale oo kale go eat afka soomaaliga muxuu noqonayaa kiisu ma hal qaabkaasoo kulu leeyahay mise waa uu ka ballaaraya intaa runtii horta soomaaliga dee aada looma darsin laakiin sidiisa waxa weeyaan uu ka ballaaran yahay afafka kale runtii wuxuu leeyahay laba hab oo falka uu u dhigmo labada hab midi waa habkan
falka caadiga ahee wixii amarka lagu bixinaya ama fal amarka ama falsadullaha oo waxa un qaab sidaas oo kale. mid kale waxa weeye fal u dhigan sidii tusmo ama yacni tilmaan oo kale u dhigan. marka labadu way kala qaab duwan yihiin oo midna qofka waad aragtaa inaan lagu amrayn laakiin tilmaan ahaan buu u dhacayaa, midna waa kan amarka lagu siiyo dee qofkaasi waxaa qabo. marka isirkeenu innaga labadaas uu ka yimaadaa, yacni fal lagugu amrayo waa ereyga u tusaale oo kale maxaa haddaynu iminka soo qaadano falka ku yimaada matalan amarka ama falsadullaha oo kale wuxuu leeyahay laba qaybood. qayb waxay ka qaataan xagga dambe kaabka raaca ama kaabka raaciyo marka xilli garaadaynayo wuxuu qaataa kaab dambe. qaar baa jira kaab hore qaato oo falkan la isku amraa. runtii ma badnaa, laakiin waxaad moodaa inay sida carabidoo kale ay xagga hore ka qaataan. dad badan baa yidhaahdaa mala carabida aynu ka eegana, laakiin ma jirto. sababtu waxay tahay ereyadan ama falka ah ee sidan carabida xagga hore ka qaadanaya yani maaha ereyo af carbeedka meel ka soo gala. marka waxaad arkaysaa inaanay dee xidhiidh ka dhexayn. haddii ay ereyadu ay carabi oo kale ama macnaha la yeelan lahaayeen waa la odhan lahaa, laakiin maadaama aanay macnihiiba isku mid ahayn waa kulan kolleyba dee kulan kale ay noqonaysa, laakiin af carabiga inoogama iman. waxaa markaa ka mid ah matalan odho oo kale. odho xagga horeynu ka geeninaa, wuu yidhi, way tidhi, waan idhi. aal waa wixii yaalla dhulka, way taallaa, wuu yaallaa, waana alla. yani waa falalka caynkaas oo xagga horey ka qaataan, waana fal dee amara. waxaa jira falalka kale de inta badan oo iyaguna xagga dambe ka qaato, cuntay, cunay, wuu cunay, waan cunay, waa cuntay. sida xagga dambe waan arkay, wuu arkay, way aragtay. marka kuwaas waa kuwa fal amarka. kuwan kale ee iyagu ah fal tusmo ama fal tilmaan ah, waxaa ka mid ah falkan la yidhaahdo ah ee isagu ahaanshaha ka hadla. marka ah waa fal tilmaamaya qofku wuxuu yahay. matalan waa nin ah, waa qof nin ah, ama waa geed casaana, yani waa ahaanshibuu ka tilmaamaya. marka wuu yahay, way tahay, waa tilmaan buu ka yimaada. waxaa jira ereyo kale oo iyaguna tilmaan ka yimaado, oo matalan og oo kale. waa nin og. marka og waa fal tusaale ahaan imanaya oo da ama tusma ama tilmaana oo wuu ogyahay. wuu ogaa. marka amarkiisu haddii tusaale ahaan oo kale amar aan ka dhigin ogow buu noqonaya. bedelaysaa leanno inta u gaaban markuu yahay waa markuu isirka yahay. marka inta u gaaban waxa weeyaan tilmaan buu u egyahay. marka og, ogol oo kale, leh oo kale waa falalka tilmaamaya tilmaanta. marka kuwaas marka in kuwa intaasoo ni dheernahay labada qayboodba oo day weliba aynu xagga hore iyo xagga dambeba ay ka qaataan falalkeenu qaarba. waxaa jira falal matalan jooge ah, matalan bug oo kale. bug wuu bukaa. marka qofka bug waa yani sida xaaladaada ku joog. aal oo kale waxa weeyaan isaga laftiisa xaaladaada ku joog oo kale. marka falalka caynkaasi waxay had iyo jeer qaataan dhawaaq kale oo sii cusleeya. imika uu bug bukaa, aallaa. marka ool oo kale waa erey kale oo ka duwan. wuu oolay. la-da waxba ma raacaan, laakiin kuwaa maaragtay falku aanu isbedelin, qofku xaaladda kusii jiraayo. wax kana ayaa lamaane noqda oo laba laga dhiga ama cuslaada. oo aallaa oo kale wuu yaallaa, way taallaa,
buka marka waxaad arkaysaa inuu aada uga duwan yahay ama uga cabqarisan yahay afkeenu afafka kale markaad u eegeyso marka runtii de innagaa weli gaadhay inaynu xoog u dhex gallo oo afkii aynu de cilmi baaris badan lagu sameeyo inkastoo dee dadku isku daya laakiin cilmi baarista aynu sameynaa inta badan waxay khusaysaa waxyaabahan kale ama dee dhaqanka la xidhiidha ama la xidhiidha suugaanta ma waxyaabahaas laakiin naxwaha waan gartay dadka qaar aqoontooda dadka qaar maanta wixii waxba ka garanay inta badanna dadyowgan aada inooga badiya ee dee afafka kale ka yimid ee iyagii sidii garanayo cilmiyadii linguisticska ama cilmiyadii afka innagii baa kaga wanaagsan markaynu dee samaynayno analyse ama wax taxliilayno iyaga midhihii ma haystaan ama afkeenii aada uma shirabi karaan marka kulley shaqo badan bay u baahan yihiin waan gartay tan erey bixinta afkeenu waxaa la yiraahdaa erey bixintiisu yani aada bay u fiican tahay haddana inkastoo inta badan aynu kasoo waaridno afafka shisheeye gaar ahaan af carabiga marka ereyada la fiirinayo af soomaaliga hodan buu ka yahay yani waxaynu leenahay wax walba wax magac u yaala hadda magacyaalka kasoo qaadoo kale af ingiriisiga oo kale annaga oo kale marka la leeyahay dee annaga keliya unbay yaan leenahay laakiin afka soomaaliga oo kale waxaa jira innaga iyo annaga maxay ku kala duwan yihiin tusaale oo kale afafka kale iyagu waxay raacayaan qofku siduu kula hadlayo markuu taagan yahay oo markuu annaga ku leeyahay ama innaga dee ingiriisiga oo kale wiigu ku odhaya ama as af carabigii waa lamid afafka kale waa lamid inta badanna qofkii kolba siduu u hadlayaad ka dareemaysa cidduu la hadlaayo laakiin af soomaaliga oo kale markuu kudha annaga waad la joogtaa laakiin adiga sheekada kuma socoto laakiin innaga hadduu ku idhaahdo waad arkaysaa inaad ku jirto hadalkii marka yani de si baxan buu ugala horeeyaa markuu wax tilmaamayo macnaheedu waxa weeye يعني حالات بدن وحين أسمينا مجاعية كلا دول أنت واحد لمدة مدة تلمامين بكلا تلمامة يجوبته هلك وحي كلا دروسية أو مثلا مركو كولا هلكان أما كان يكاس مدوكو أكتاجي كاس لكن ومد كابر ولكن كوكوس من هرتابا كير ومن أن هرتابا تاجمين لكن دين عكاحية أو كير مركو كولاهتو وحويا وكل دين عكا تاجم كونا كاسو كسيش الشيء مركا لبدي دين عبا وحي هرتابا تاجم وحي دين عكا تاجم مركو وتلماميو وسيجار وكلا شيء لكن عففك كلا ما سيكرا تلماما marka waad aragtaa inuu afkeenu aada uga sii duwanyo maalmaha ku jira oo matalan maanta berisaa dambe shalay dara waxyaabahaas oo dhan maasha allah yani dee wiigiiba xisaab buu ku haystaa marka mar haddaad wiigaagii aad toddobaadkii aad haysato waxa weeyaan qorshahaagu wuu ka dheer yahay afafka kale ma yani dee waxaanaad qorsheynaysaa waxa weeyaan saadama oo kale markaad jiraan afafka kale uma isticmaalaan af maalinta berri ka dambaysa hadday doonaan yidhaahdaan marka yani waxaad aragtaa inuu af soomaaligu uu ka qoto dheeriya ama yani dee ogaalkiisu fog yahay ereyada iyo asalkooda waxaa jirta in ay doodi ka jirta oo tusaale ahaan oo kale in afaf ereyo badan oo afkeena la yiraahdo waxay ka yimaadeen afaf kale tusaale oo kale ereyga warqad laakiin dad badan ay qabaan in ereygan oo asalkiisu uu ahaa af Soomaali ereyga warqad oo kale waa laba ereyo la mataaneeyay waa war iyo qaad
marka ereyadaasi iyo ka waran arrinkooda. horta marka afka aad ka hadlayso yani markaynu ka tagno Soomaalida dadka aynu afkii gal waxa weeye afkii jiray buu ahaa matalan ee meesha yaalay wixii doonaba ha barta ama wixii doona ha yimaadaan marka af markuu meel yaallo had iyo jeer afafka kale agtiisa markaad ag dhigto waxaad ku kala garan kartaa siday u kala horumarsan yihiin ama u kala horeeya waxaa ka mid ah matalan dhawaaqyada ay samaystaan afafkaasi iminka afkeena oo kale dhawaaqyo badan carabida ku jirin baa jira carabida qaaraan kuweena ku jirin baa jira laakiin waxaynu kaga badannahay shaqalada oo aynu inagu 9 u kala saarno iyagu 3 bay isticmaalaan matalan shaqalada dhaadheer laftooda 3 bay isticmaalaan shaqaladan diftonka ama shaqal huurkeeda ay iyo aw iyo 2 isticmaalaan oo kale hadda ay 3 ba gaarsiiyaan laakiin Soomaaliga markaad aragto 30 dhawaaq oo kuwan diftonka ah 20 dhawaaq oo shaqaladan dhaadheera 9 dhawaaq oo shaqaladan gaagaaban ilaa 30 dhawaaq oo jira oo inagu aynaan weli wada isticmaalin laakiin af Soomaaliga ku jira waxay ku tusaysaa inuu af Carabiga aynaan horteed jiri jirnay oo afkeena u jiri jiray haween afkaagu hadduu af kale ka yimaado waad kaga dayanaysaa dhawaaqyada laakiin imika af Xabashiga Sawaaxiliga afafkana noo dhow oo dhan dee sideena uma dhawaaq badna marka taas waxay ku tusaysaa afkeenu inuu uga soo horeeyay afafkan deegaanka midda kale suugaanta uu afku samaysto waxa weeyaan afku markuu meesha ku dhasho weligii joogay suugaantiisu way ka hodansantahay kuwa kale laana waa af dhaqankii ku dhex jiray oo ku meesha barbaaray marka maadaama uu afkii la koray deegaanka waxa weeyaan noloshiibu qayb ka mid yahay marka wixii jiro dhan sidii loo faa'iideystay sidii loo isticmaalayay marka waxay ku tusaysaa suugaanta lafteedu dhaqankii iyo hidiyo iyana jira imika waxaan ummadaha kale lahayn baa jiro imika matalan waxaan oodka la yidhaahdo kale ma jiraan ummad sideenoo kale intay subag iyo ku dhex jirto sanada u oolayo ma leh laana waa intaynu dheer lahay waad aragtay waxyaabahan ay dumarkeenu sameeyaan darinta iyo hararka iyo waxyaabaha oo dhan ay sameeyaan dadka qaar baa ku oranaya matalan dhar miyaynu samaysan jirnay yani qofka farshaxanka markuu ku jiro waxaad garanaysaa waxaan imika yaan la samayn oo dadka qaar baa dhaqaale ahaan isaga daynaya waxay samayn jireen markay helaan qolo kale oo wixii oo ka jaban keenta laakiin ingiriiska waad aragto waxaa laga samayn jiray dee kabaa ugu badan imika iyagaa loo soo dira waxa weeyaan wixii bay isbedelayo markay wixii meel ka jaban keento waad joojinaysaa marka innaga markaad eegto farshaxanka ay sida wax u sameeyaan ama u unkaan dumarkeenu waxyaabaha waxaa kutusaysaa inay farshaxan aada u badan ay leeyihin marka inay mara samayn karaan waxa ku caddayn karaa waxa ka badna ay sameeyaan dee hararkii iyo kabadii iyo cawskii iyo wixii oo dhan iyo sidaa loo samaynayo iyo dee wixiina ay wada farshaxan yihiin weliba dee mara caadi oo la sameeyo ka badan markaad waxaan oo dhan isku darto waxaad arkaysaa in afkeenu yani jiritaankiisu kaba sii horeeyo maadaama uu jiritaanku kasii horeeyo waxay kuu sheegaysaa inaanad ereyada kasoo amaahan waxa kaloo jira matalan markaynu weedha samaynayno oo kale iminka markaad weer samaynayso afka Soomaaliga siyaabo badan baa loo sameeyaa laakiin afafka kale oo dhan hab qura lagu tusayaa lagu leeyahay sidaasay u kala horeeyaan ereyadu marka yani sidaa u sameey waad ka tegaysaa qofkii maanta sameeyay qofkii hore sameeyay qofka joogaba haween intaasuu raacayaa sidaas u kala horeeyaa laakiin Soomaaliga oo kale wuxuu leeyahay weedha aad samaynaysaa 9
dhinac bay u rogmaysaa matalan kolba dhanbaad kaga imanaysaa runtii way jiraan xeerar ay leedahay oo in la raaca ay tahay laakiin maadaama xeerarkii dee xeerar lagu dhaqmay aanay ahayn oo yani dadka hore loogu sheegay waxay noqonayaan wuxuu qofku iska awaalaya una odhanayo ma kanaan horreysiya ama cid kalena aanay ku qabsanayn yani hadduu kan horreysiya laakiin sideeda kala horreysiinta lafteeda xeerar bay kala leedaho yani sababtan ay u kala horeynayaan ayaa ah wax dee dastuur u dhigan oo inaad raacdo yani aan ujeeda leh markaa imika matalan haddaynu soo qaadano weer ama sentence aynu leenahay cali shalay buu gurigii tegay ama shalay ayuu gurigii tegay cali sidaa doontaad u kala horreysiinaysaa laakiin muhiimaddu waxa weeye ka u soo horeeya hadalka aada ujeeda inaad wax ka hadasho marka shalay markaad imika matalan shalay ayaan gurigii tegay shalay waxaad u sheegaysaa markaa qofka inaad doonaysa inaad shalay ka hadasho qofka u sheegta inaad shalay tagtay gurigii laakiin gurigii ayaan shalay tegay markaad tidhaahdo waxay tilmaamaysaa in guriga aad ka hadlayso ujeedada aad qofkan ugu sheegaysaa uu yahay guriga marka waynu kala horreysiinaa laakiin sababtaa ah waxaynu u kala horreysiinaa kolba mid usoo hormaraa yani ujeedada aynu ka leenahay waxaa jira markaa wax erayo laaciyaanu nidhi imika matala markaanu analyse qaadayna ku daray waxa weeyaan ereyada aynu waxa iyo ay iyo waxyaaba caynkaasa oo soo gala afka ereyadaasoo kale markaad matalan taa shalay waxaan tegay gurigii waxa markaad isticmaasho adiga oo shalay hadalkii ku bilaabay oo ujeedadaad waxay shalay waxa iyana tilmaamaysaa inaad dowladaadu ay meel ku socoto oo shalay waxaan tegay gurigi marka weedha ama sentenckan halka u dambaysa hadaad waxa isticmaasho waa inuu noqdaa shaygii aad ka hadlaysay oo shalay waxaan tegay gurigii shalay waxaan arkay hebel yani waxa markaad isticmaasho mar baad jirtaa aad ay isticmaalayso oo shalay ayaa tegay gurigii marka aydu lafteedu muhiimad kale leedo shayga ka horeeyay tilmaantaa oo yani hadalkani ujeedadu inuu yahay shayga ka horeeya marka gurigii ayaan tegay shalay marka aydaasi ka hormaray iyaduna marka labadani way isbedbedelaan oo midbaba marka waa hawl badan soo ma jiraan wax annaga inoo gaar ah erayo annaga inoo gaar ah oo luqadaha kale inta badan aan laga helin oo tusaale ahaan oo kale ereyga laayay oo kale iyo way jiraan tusaale jamaca maxaa la yihahdaa erey wadareed waa falwadareed falwadareed waxaa jira annaga inoo gaar ah marka runtii waxa afafka kale runtii kumaan arag wax kala duwan oo ama qofka gaar loo isticmaalo ama dad badan loo isticmaalo laakiin marka soomaaliga oo kale markaad laayay tidhaahdo falkaasi wuxuu ku socdaa dad badan marka looguma adeegsan karo qof keligiya oo imika matalan waan laayay wiilkii ma odhan kartid laakiin waan laayay wiilashii ama garaac oo kale way imanaysaa marka libaaxii wuu laayay xoolihii laakiin libaaxii wuu laayay awrkii ma odhan kartid marka falkaas matalan fal kale oo yaac oo kale marka la idhaahdo way yaaceen waad odhanaysaa waanu yaacnay yani waa falalka ay samayn karaan ama ku socon karaa dad badan laakiin haddaad tidhaahdo waan yaacay dad waan maqlay yidhaahda waan yaacay laakiin maaha ayn laakiin qofkii mar haddaan wixii garanayn siduu u isticmaalayo wuu odhan karaa meelaha qaar waa laga isticmaalaa waan yaacay laakiin maaha waxa qof keligii lagu isticmaali karo marka wax badan baa jira oo afafka
waxaa kaloo oo dee dabcan aan arkay oo aan isleeyahay gooni bay inoo tahay falkan leh labada ficil ku dhacaha kaba soo qaada kale uu inoo kin sheegay oo kale uu noo kin sheegay iminka matalan afka faransiiska oo kale wuxuu leeyahay waxaana yidhaahdaan direct object iyo indirect object yani yeelme toosa iyo yeelme ama dahsoon ama daahan oo kale marka yeelmahan ama qofkan uu falku ku dhacayo afafka kale inta badan waxay isticmaalaan erey qura oo hadduu qofka ku dhacayo hadduu si dahsoon ugu dhacayo si aan toos ahayn uu keligii qaadanayo oo ingiriista oo kale dee markuu falku ku socdo miibuu odhanaya markuu qof kale falkaasi kusii dhacaya haddana media unbaad isticmaalaysaa laakiin af soomaaliga oo kale markaad leedahay falkii adiga kuu socdo wuu ku tuuray matalan oo adigu falkii kugu socdaa markuu matalan uu ku leeyay adiga ayuu wax kuu sheegay matalan annagana wuu naga sii sheegay wuu kuu kaayo sheegay marka adigu kuu sheegay laakiin haddana kaayo oo annagii object caadiga markaan ama falku nagu socdo annagay weeyaan oo wuu na tuuray laakiin marka uu objectku sii guuraya ee qofkii falku ku socday uu yahay qof kale oo ka dambeeya kaayo ama keen ama kiin ama kood ama kiis waxaa gala ereyadaasoo ah iyaguna falku uu ku socdo laakiin kasii dambeeya ka kale oo uu ii kaa sheegay oo kale wuu kuu kay sheegay marka mar baa jirta aynu isku qaladno wuu kuu kay sheegay iyo wuu ii kaa sheegay ayay kala noqonayaan markuu aniga wax ii sheegayo wuu ii kaa sheegay adigii wuu kuu kay sheegay laakiin imika waa ereyada aynu sidooda isaga qaadano wuu ii kaa sheegay adaa moodaya marka inuu adiga kuu sheego aniga ii sheegay laakiin way kala leeyihin oo dee qofka falku ku socda ama sida tooska ama sida dadban runtii faransiiska ayaana isagu oo ka aan dadbanay aan toos ugu soconiyo iyo ka caadiga aba laakiin afaf kale maan arago sidan u isticmaalaa kulliba afkeena aada buu yani uga sii sharax badan yahay afafka kale axmed aad baad u mahadsan tahay waad mahadsantahay xasan waa aada iyo aad daawadayaal halkaa waxaan kusoo gabagabeyneynaa qeybtii koowaad oo aynu uga hadlaynay hodantinimada afka soomaaliga waa anigoo xasan yuusuf ooleyda leh waa mahadsantihiin kulanti dambe oo wanaagsan